iyadana ninaan saaxiibanahay walaal ayaa wuxuu igu yiri nin sheekhoy saaxiiba yihiin ayaa wuxuu ku yiri magaalada Muqdisho ayaa wuxuu yiri waxaan ku lahaa dukaan suuqa Bakaara waxa ii timid buu yiri hooyo Soomaaliyeed oo ku qiyaasay 40 iyo xogaa jir oo gaari gacan sidata markaas waxa igu tiri yiri walaal wax lagu qaado ma haysaa way shaqaysanaysaa gaari gacanka ku shaqaysanaysaa wuxuu yiri waan fiiriyay wax la ii qaado markaa ma aan haysan dukaankayguna saa uma sii weynayn laakiin marka aan fiiriyay rafaadka iyo macluusha ka muuqata gabadha iyo gaari gacanka ay sidato oon qiyaasi karo waxa u geeyay inay gaari gacan Bakaaraha ku dhax wado marba dukaan istaagto ay tiraado kiish sonkora ma ku qaada aan garan karo waxa ku qasbi kara ayaan saa markaan u fiiriyaa wuxuu yiri waxaan is iri bal gacmo maran yeysan ku laabane waxaan iri labadaas kintaalo sonkorta ah midna burka yahay inta dalkan maaragtay iga qaadid halkaas gee wuxuu yiri waan la saaray anaa u saaray gaari gacankii anoo weli ka naxsan ayay dhaqaaqda laba tilaabo markay ka qaaday la dhacdo labadii kintaal gaari gacankii waa naxoo yiri waa ka daba tagay markaasaan ku iri walaal iska daa maya dhib ma laha walaal waa xoogaa waa yara maaragtay wax baan meelo kale ka fakarayay dhib ma laha waa la saarayeen mar labaad dukaankan ku soo laabtay kursi kan oo kale ku fariistay halkaas oo kale laba tilaabo kale markay qaaday hadana la dhacdo markaasaan ka daba tago waxaan ku yiraahday walaalay ummadda nabi maxamed dad kamid tahay lacagtii hoo imisaad iigu geyn lahayd intaas $5 $4 waxay ahaataba hoo waa taqaado waxba ha qaade anaa geysan ilaahay khayra ku sii iska soo maya tiri maya abadan waa inaan qaadaa on shaqaystaa oo halkii aad tiri bakhaarka kale iigii aan ku geeyo walaal iida aan shaqaystaa inagoo murmaynu yiri oo meeshii wada taagan ayaa waxaan hoos u fiiriyay hal mar lugaheeda iyo dacaska ay qabto markaas waxaan arku yiri dheecaan dhiig u eg oo lugaheeda ka tifqaayo markaas waxaan ku yiri walaal maxaa dhacay dhiigu waa maxay waxa lugaha ka tifqaayo waa 2008 waa Muqdisho waa suuqa Bakaara waxa igu tiri yiri hadal wadnaha ay kala jaray ilaa maantana aan wali ka bogsan waxa igu tiri yiri intay xishootay oo xijaabka indhaha saaratay ay si tartiib waxa igu tiri adeer xalan umula waxaan shaqaysanayo waa caanihii ilmihii aan xalay umulay aan siin lahaa subxaan allah markaas adduun kale iyo siyaasad iyo ra'iisul wasaare iyo madaxweyne iyo maamul goboleed iyo makhaayado iyo guryo aan har iyo habeenba isku dilnaa waxay tiri xalan umulay tiri dhiigga iga socdaana dee waa dhiiggii ka socon jiray cid kasta umusha xalan umulay ilmihii aan xalay umulay caanahan siisan lahaa ayaanan gaari gacankaas u wataa qorraxdaas iyo ciriddaas aan suuqa Bakaaraha ula dhex wareegayo wax walbo ku haysta oo ina haysta mar walba xusuusnow muslimiin kale ayaanan gaari intanada isku dhuuxa ah Soomaali Maxamed intanadaan guryaheena haddii dib loo baaro ehelkeena haddii dib loogu noqdo waxaan ku dhaaran karaa sheekooyin kuwaas oo kale la mid ah iyo kuwa ka xanuun badanba inay guryahanaga meel kale intaan la gaarin bay ka buuxaan cid waliba dib hadday isugu noqoto inay garan karto oo soo heli karto
dhowr gabdhooda xalay umaloon caana aanan u haysan caawa ilmahooda marka mashaayikh alkiraam su'aasha u horeyso gabar ayaa soo qortay waxay leedahay andhahe nin baa soo qoray wuxuu leeyahay gabar la qabo islaan la qabo ayaan ninkeedii ka furtay kadibna waan isku tagnay uur bay yeelatay kadib baan guursaday leeyahay ayadoo uurkii leh marka wuxuu leeyahay maxaan samayn karaa gabadhiina waan qabaa hadda oo waan guursaday laakiin ayadoo uur leh ayaan guursaday uurkaasna asagaa iska leh bimacnaa ninkii hore oo isqabaan ayuu uurkaas dhacay marka maxaan samayn karaa cunugiisa xaalkiisa muxuu noqon karaa soomaalida waxay yidhahdaan gabadh baa waxaa laga waaninahay naaxumaanta jooji iyadoo la waaninahay baa waxay tidhi ii dhaqsada waa lai fadhiyaa marka wixii caawo dhan laga hadlaya ayaaba hadda waxaa bilaabatay kowbet waa middii ugu foolxumayd waa ninkaasi runtii arrintiis waa culusta dulmi dhowr dhinaca buu ku jiraa ama uu galay faaxishadu markay zina keligeeda tahay qur-aanku waad aragteenoo aad buu u weynayey magaca ilaahay u bixiyeyna faaxisha loo bixiyey faaxisha waxaa la yidhaahdaa waa shayga foolxumada meesha ugu dambaysa ka gaadhay waa zinanimada waxaa dheer nin walaalkii ah oo muslim ah oo xaq ku leh bal xuquuq ku leh buu gogoshiisii wasakheeyey ayaduna waa jariimo weyn leanna way kala duwan tahay haweenay aan guri lahayn oo nin lahayn iyo mid nin le way kala duwan yihiin zinadii baa kala culus iyadana culayskeeday leedahay mar kale culayskeeday leedahayoo inuu islaantii ka furtay ninkii ilaan hadda soomudhin waan qabaa soo ma macnaheedu waxa weeye ninkii hore qabay ayuu ka sasabtay oo ka furtay oo markuu bannaanka soo dhigayna wuu guursaday ayadana waa qodob kale oo guri inuu dumiyo oo ninka xaaskiisa kala hoos baxo iyadana waa jariimo weyn oo ka weyn xoolo layska dhaco qodobka kaleeta waxa weeyaan uurkan uu ka hadlayo ee ninku intuu qabay yimid ilmahaasi alwaladu lilfiraash buu nabigu sal alla alay wasalam haweenayda ninka qaba ee xaaska u tahay ee gogasha u tahay inta uu xadhiggiisu ku xidhan yahay waxay dhasho isagaa iska leh allaahumma inayna ka suuroobi karin mooye sayna uga suuroobi karin maalan xilli aysan isaga u dhali karin bay kala maqnaayeen xilli ayna caadada iyo curfiga haweenaydu aysan muddada uur lahaan karayn ayay ilmaha ku dhashay caada ahaan suurtagal maa markaasoo kale inay dhashay waa ilmo zina waay laakiin marba hadduu ka suuroobi karo alwaladu lilfiraash ilmaha waxaa iska leh ninkii islaanta qabay ee gogosha iska lahaa walilcaahiri alxajar buu nabig sal lla alay slm ninka zaaniga ee reerka soo dhex galayna asaga dhagax buu leeyahy asaga abaalkiisa waa in dhagax lala dhaco laakiin maanta dhagaxii ma hayno ninkaasi ilaahay toobadda waa aqbalaa laakiin dunuub waaweyn buu galay sida uga bixi karana ninkii walaalkiisa gogoshiisa uu fadareeyey oo halleeyey siduu uga xalaashan karo idinka ma sawiran kartaan yaa xaq bini aadan waaye gurigiisii buu ka qaatay gogoshiisiina waa ka wasakheeyey intaad u tagto ma dhihi kartaa gogoshii baad yaan kaa wasakhay raalli how yacafi nin tuurle tabuu seexda isagaa yaqaan aday kuu taallaa laakiin mid baan anuu kuu sheegi ilaahayna u soo laabo
haweenaydaasi aad sida khaladka isugu timaadeenna ku celi ninkeedii dib ugu celi hadduuba qaadanayo ilmaha warkiisa ka baxa qodobka kale wuxuu yahay ninka walaalka ah inaad cafi weydiisato waa inta keliyata inuu ku cafiyo tii ilaahay iyo zinadaad gashay baab kale waay laakiin isaga dhankiisa xaqu lahaa inuu cafiyo unbuu ku dhici karaa haddaad tidhaahdo ma hortegi karo ama fidno ka weyn baan ka baqayaa anigu kuma dhihi karayo hawshaasi saasay ku dhammaan laakiin waxaa lagaaga baahanayaa cimrigaaga intaad nooshahay ninkaa walaalkaa inaad u ducayso bal wuxuun xaqiisii wax ka mid ah inaad gudi karto inaad isku daydo inahaas baan ka dhihi karaa waana runtii fasaad aad u weyn waay fasaad aan sahlanayn iyo dembi aad u culus waay wallahu aclam waabaa gaari anoo wada waxaan deganahay Ohio gobolka la yiraahdo magaalada Columbus intiina badan waad garanaysaan bilaha winterka waa taqaanaanoo baraf waxaa dhaca lagu baaba'ay waaba anoo magaalo kale ka imid oo magaalada Columbus ay jirta 20 mile oo highway-ga saaran barafka dhacaayana ilaahay un loo sheegi karo qabowga dhacaaya haddii gaariga inta muraayadiisa aad inta hoos wax yar u dallacdo aad wajigaaga banaanka sanka aad saa u dhiibato yani sanka ku qalalay sidii qoraaradii oo hadda taabata aan garan hadda waa ilbiraqsi ogow intaad saa tiraad soo laabatay qabowga dhacaaya subxaanallah qabowga dhacaaya haddii biyahan intaan qaado oo muraayada aan hoos u yara dallaco oo saa intaan hal mar banaanka geeyo aan isla markiiba soo celiyo biyuhu ay noqon baraf yani saa hadaan uga day baraf hadda waa ilbiraqsi ogow qabowga dhacaaya inta uu leegyahay ayaa gaarigii aan wataa lug ka banjartay waa 8 saac oo habeenimo 2 in the morning waxaan u jiraa 20 mile magaaladan degnaayo waaridkay degnaayo walaalahay degnaayeen Soomaali 40,000 oo Soomaaliya degan Uganda meeqa degan 40,000 meelaha sama soo ka badantiin 20,000 inaga baa idinka badan ilaa meesha waxa kuma haysaan 40,000 oo Soomaaliya ayaa Columbus Ohio degan oo cid walba aan ka wacan karaa laakiin waa 8 saac habeenimo baraf aan la aragoo la maqal ayaa da'aya barafkii baa wuxuu isku bedelay snow markay yiraahdaan waa baalka xunshada laakiin baraf ice oo hadaad kor istaagto aad la sabaxanayso gaari inaad wado warkeeda iska daa gaariga kaliya oo highway-ga ka duulaya aad la yaabayso qof inaad wacdo 8 saac habeenimo aad ku tiraahdaa 20 mile iiga soo bax gurigaaga saacadan iyo qabowgan طبعا وإنه هذا قف آد كوجوين ومن دواهر آد ملايين دولار سيستي أبال أظهر وسيك الشتي وحنا سرت له يوم وعاه لقطة وأيق بنجرتي ماشي وعدل عيرسلا عمل له وتبتع وسديت ساعة بينمو مسلم يوحد شيء يصير 20 مايل بقى يقولوا صومالي 20 مايل بقى يقولوا تلو يوم وعاه يان أيرتا ونرى ورسوجر aniga walaalaha ila dhashay ayaa jooga magaalada oo ilmo kale oo kama wada inay dad xun yihiin laakiin sama wacan intaasoo qaraabo ama wacan waxaan isleeyahay talow yaad wici kartaa oo marka aad u sheegto ereyga koobaad oo afka qofkaasi ka soo baxa aysan canaan noqon war maxay tahay saacadan meelaha aad wareegayso mid waxaaba tahayba maaragtay arka ka soo dhacay qof yaan igu oranaynin talow yaan wacaayo xogaa intuu igu qayliyo aan canaananayno kadib aan dhahan bal waayaha waa soo socdaa kulley hadda maxaan kaloo samaynaa meesha wax inkaar qabato iska taqaanaa waa ka fekeray ma walaalahay baan wacaan maya xoogaa canaantii inay jirto waan ogaa xoogaa canaana inay jirayso ma waxaan wacaa ninkii kaloon saaxiibada ahayn oo waagii halkii aan ma aragtay ku wada safarnay maya isaga laftarkiisu waa yaro kululaa waa ogaha inuu dhihi doonaa acuudu bilaahi majiniyada la shaqay saacadan maha bannaanka ku dhigay yaan wacaa markaasna waxaan soo xasuustay wiil dhalinyaro ahaa oo u dhashay dalka Afghanistan oo aabihii masjid daar al-hijra la yiraahdo isagoo oday waayeel ah uu imaan jiray habeen walba aabihiisaan ogaa marka isagoo wiilku waan isnaqaanay hoos laakiin isku maanan si aqoon aabihiisaan waxaan aqaanay anoo dhalinyaro oo 14 jir 15 jir 16 jir markaan soo karaayay masaajid ku yimaadaa
masaajidka hortiisa meesha kursiga uu fariistaa dhallinyarada soo gelaysa oo da'deeda oo kale oo intuu gacanta qabto ayuu wuxuu yidhahdaa haye ii waran ii sheekee wax ma soo cuntay iskoolkaaga ka waran hooyay aabba ma fiican yihiin gaari ma leedahay kooko iyo faanta iyo masaajidka meel yaroo wuxuu lahaa makhaayad yaroo ma aragtay biyo ma cabtay oon ma ku hayaa yacni waxyaalo waarid hooyaday un aan ka firi lahaa inay weydiiso ayuu maalin walba i weydiin jiray ilmaha oo dhanna weydiin jiray waxaan isiri marka aabbihii wanaaggaas aan ku ogaa hadduu dhalay isaga aan bal tijaabiyo waxay u badan tahay wiilkana ahlulmasjid u ahaayo waan arki jira mar walba waxay u badan tahay wanaagga iyo samahaas aabbahaas aan ku aqaanay intaas kollay wiilkaana si unbay u soo gaartay bal isagaan iska waco soomaali maaha waa wacay taleefonku iga qabtay ii waran salaamu calaykum waa maxamed diini sooma fiicnad haa miyaho waxaan taaganahay meel ma aragtay saas ay u dhacday subxaan allah sidii aan filay su-aashii koowaad i weydiiyey waxay ahayd exitka kuugu dhow nambarkiisu waa kee saan kuugu imaada kuugu soo baxo man mashaa fii xaajati akhiihi liyaqdiyahaa lah wax fog iyo meel fog ba anigu aadi maayaba anoo sakaraad oo bogaya beerka isku hayo qof biyo isiiyey baba meel yar qofkaasi wuxuu iigu summadan yahay xadiidkaasuu iigu summadan yahay dadkii walaalo iyo qaraabo lalahaa oo dee waxba aanan ii qabanoo anigaan isa soo dabarayo yarkii ii yimid oo taayirkii ila bedelay oo aan magaaladii imid oo subaxii markaan soo toosay aan u sheegay oo hadda waxba imaysan qaban ogow qayladii iyo canaantii ku dhacday ilaaha ogaa warilaan oo maalinkaa wax ii qabta maxay calaalaysaan idinma soo wacan waxba waa idin sheega un war wax waalan baa tahay mar dambe waddooyinkaas aadino mala socotaan man mashaa fii xaajati akhiihi liyaqdiyahaa lah habata allahu qadamayhi yowma tazilu alaqdaam